qaar kamid ah golaha khusuusiga SSC oo maanta shir jiraad ku qabtay deegaanka Dharkeengeeyo oo ka tirsan gobolka Sool ayaa waxay kaga warbixiyeen shirar maalmaha dambe ka socday deegaanka Dharkeengeeyo. Mukhtaar Xirsi oo kamid ah xildhibaanada khusuusiga isla markaana saxaafada u qaabilsan ayaa wuxuu ka warbixiyay xil qaadis lagu sameeyay hogaamiyaha SSC Saleebaan Axmed Ciise Xagla Toosiye oo ku sheegay inuu gudan waayay waxyaabihii loo doortay wuxuuna sheegay in hogaamiye ku-xigeenka SSC loo doortay inuu noqdo hogaanka sare ee SSC. yahay gudoomiye kayb ugu horeyn waxaan salaameynaa shacabka SSC gudaha iyo dibadda. salaanta islaamka ayaan ku salaameynaa 20kii bishan aynu ku jirno bisha 2011 waxa kal fadhi isugu yimid golaha khusuusida tuulada Dharkeengeeye oo ah caasimadda ku-meelgaarka SSC kalfadhiga shanaad oo golaha khusuusigu waxa ka furmay Dharkeen 20kii bisha 2011 wuxuu gaaray go'aamo iyo talooyin dhaqan gelinta dastuurka dhaqamo wuxuu gaaray go'aamo iyo talooyin kuwaas oo kala ah dhaqan gelinta dastuurka SSC oo horay goluhu u ansixiyay cod sidan ah waxa odeeyay 15 cod ayaa isku raacay waxa diiday xubin waxa ka aamusay xubin waxayna dhamaayeen tirada isugu timi 16 xubnood. dhaqangalka dastuurku wuxuu saameeyay qodobka labaad dhaqangalka dastuurku wuxuu saameeyay oo xilka ka qaaday kadib markii uu ka maqnaaday 9 bilood uu maqnaa uu tagay bishii November 9keedii ilaa 23kii bishii 2011 dastuurku wuxuu xilka ka qaaday hogaamiye Saleebaan Axmed Ciise Axmed waxa kale oo hogaamiyaha lagu eedeeyay xil gudasho la'aan oo dastuurka uu qabo qodobka 43aad firqadiisa koowaad iyo tiisa labaad iyo tiisa saddexaad wuxuu sameeyay furfurin ciidan SSC xilli dagaal iyo la tashi la'aan uu kula dhaqmay golaha. qodobka saddexaad waxa uu goluhu u magacaabay hogaamiye Ali Xasan Axmed Ali Sabalay oo ah ku-xigeenkii siina hayay hawsha. qodobka afraad waxa goluhu ambaareyn u soo jeediyay shirkii Khaatumo ee London kaasoo uu keenay furfurid iyo jahwareerin shacabka SSC. shirkaasi waxa uu u sahlayaa in ay shirkaasi wuxuu u sahlayaa in ay la wareegaan gudiyadii una diyaar garoobaan xukuumad SSC in NSUM iyo wax la mid ay u sahleen burburin si ay talada ula wareegaan oo iyagu maamulka u yeeshaan ayaa shirkaasi ka shaqeeyay mu'amaraad lagu burburinayo SSC. waxa wuxuu goluhu go'aamiyay in aan shirka guduhu ka qabsoomin gobolada SSC xilliga laga horeynayo Laascaanood inaan wax shir ka dhicin gudaha ilaa laga horeeyo Laascaanood waa go'aamada uu goluhu isku raacay. in la dardargeliyo hawlaha xoreynta dhaqaalaha ku baxaya shirka loo leexiyo ciidanka ayaa goluhu go'aamiyay. in muhiimadu in waxa loo sameeyay kalfadhiga kan waxa la wixii mu'amaraad iyo dhibaato u geystay oo ka mid yahay shirka London oo ay ka mid yihiin kuwa badan oo mu'amaraad sameeyay waxyaalaha dastuurka loo ansixiyay loona isbedelkan loo sameeyay ayay ka mid tahay. waxaan shacabka SSC ku salaamayna meel kasta uu joogo in ay qodobada qaataan. muhiim ma aha in ay taageeraan danta iyo midnimadu waxa ay ku jirtaa in cidda gacanta ku haysta lagula shaqeeyo loo adeego. waxyaalo badan ayaa goluhu isu taagay oo dastuurka ku yaala sida waqtiga oo wax laga bedelay oo kuna eg bisha saddexaad ee 2012 qodobo badan ayaa dib ka soo bixi doona oo ilaa hadda lagu jira ha laga saaro dardargelin hal loo diyaar garoobo waxqabadna loo diyaar garoobo xilkiina waxaan ku wareejinay hogaamiye Ali Axmed Sabalay
ha lagula shaqeeyo dhammaan SSC waxaan ku salaamanaa salaanta islaamka iminkana waxaan ku soo dhaweynaynaa hogaamiyaha oo isagoo doorkiisa ka wada doona salaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatu bismillahi rahmaani rahiim waa maadsan yahay gudoomiyaha guddiga xusuusiga iyo xildhibaanada kale kalfadhigii shanaad golaha xusuusiga go'aamada ka soo baxayna waa inoo akhriyeen waana ixtiraamaynaa waana tixgelinaynaa sida ay u shaqeeyeen sida aad maqlayseen goluhu wuxuu soo gudbiyey go'aamo saameynaya hawsha iyo maxay ahayd halganka SSC qodobada waxaa ka mid ah in shirkii London ee khaatuma uu noqday mid khaatuma la'aan oo keenay furfur iyo maxay ahayd kala shaki oo dadka kala shaki siiyo iyo hawlihii ay la wareegeen niman NSUM ah oo aan dan kala hayn shacabka iyo halganka oo horey u soo dhexgeli kari waayay dadka ayaa fursad u helay inay soo galaan hawlihii guddiyadana la wareegaan dadkii kalena yidhaahdaan ka fadhiista hawsha annaga idin qabanaynaa maxay ahayd idin wadayna halgankii waxaa kaloo dhacay inay u diyaar garoobayaan inay soo galaan waddanka gudihiisa lana wareegaan hawshii iyo halgankii la waday oo ay u arkeen fursad ay hadda helayaan dadkii wadayna ay meel kaga dhaceen go'aamada waxaa kaloo saameeyey ninkii aanu saaxiibka ahayn ee aanu hawsha wada bilownay hogaamiyihii Salmaan Ciise Axmed Kaar oo qodobada 43aad firqadiisa koowaad labaad iyo saddexaad oo ah inuusan ka maqnaan karin waddanka muddo ka badan 60 maalmood iyo qodobka ku xiga oo isla firqadaas ah oo ah xilgudasho la'aan inuu naga saameeyey hogaamiyihii waana ka xunnahay sharcigana waxay ahayd inuu dhaqan galo bishii tobnaad ee sanadkii hore intaa waxay u celcelinayeen xusuusigu in bal hogaamiyuhu maxay ahayd inuu soo galo waddanka 9 bilood kadibna waxay noqotay sharcigu inuu hirgalo haddana waxaa keenay nimankii u galay cadowga in loo cuskado qodobadiisa oo xusuusigu ay kalfadhigooda kaga baaraan degaan kuna eedeeyaan baa looga maarmi waayay dhaqangelintiisa taasina qodobkaas bay noqotay ninka dee saaxiib baanu ahayn oo hadda dee sharcigu cidina kama celin karto taasina waa taa aniga xilli igu kordhaya arrintan ma ay jirto horena hawsha waa u waday ku-xigeen ahaan iyo maxay ta kusima ahaan hogaamiye haddana dee wax iga kordhaya mar halkii baa kasoo wadi doona halganku waxaanu rabnaa in la dardargeliyo ujeedada ka fadhigeenna waa sidaas laascaanoodna sida ugu dhaqsaha badan gacanta loo saaro arrimahaas iyo kuwo kaloo fara badan oo ay ka mid yihiin xilliga hoggaanka iyo xusuusigu uu xilka haynayo way ku guda jiraan waxaanu aaminsanahay qodobo kale inay ka soo saari doonaan sidaas baa qodobada hordhaca kalfadhiga ay noogu soo gudbiyeen waxaa kalfadhi isugu yimi golaha xusuusida tuulada dharkeyngeeye oo ah caasimadda ku-meelgaarka SSC kalfadhigaa shanaad oo golaha xusuusigu wuxuu ka furmay dharkeyn 20 bishii 2011 wuxuu gaadhay go'aamo iyo talooyin kuwaasoo kale ah dhaqangelinta dastuurka SSC oo horey goluhu u ansixiyey cod sidan ah waxaa odeeyey 15 cod ayaa isku raacay waxaa diiday xubin waxaa ka aamusay xubin waxayna dhammaayeen tirada isugu timi 16 dhaqangalka dastuurka wuxuu saameeyey oo xilka ka qaaday kadib markii uu ka maqnaaday 9 bilood uu maqnaa uu tegay bishii November 9keedii ilaa 23kii bishii 7 dastuurku wuxuu xilka ka qaaday hogaamiye Salmaan Ciise Axmed waxaa kale oo hogaamiyaha lagu eedeeyay xilgudasho la'aan oo dastuurka uu qabo qodobka 43aad firqadiisa koowaad iyo tiisa labaad iyo tiisa saddexaad wuxuu sameeyey furfurin ciidan SSC xilli dagaal iyo la tashi la'aan uu
kula dhaqmay golaha qodobka saddexaad waxaa goluhu magacaabay hogaamiye cali xasan axmed cali sabarey oo ah ku-xigeenkii siina hayay hawsha qodobka afraad waxaa goluhu ambaareyn u soo jeediyey shirkii khaatumo ee london kaasoo uu keenay furfurid iyo jahwareerin shacabka SSC cali sabarey oo horey u ahaa hogaamiye ku-xigeenka SSC oo maanta qaar ka mid ah xildhibaanada khusuusiga ay sheegeen inuu yahay hogaanka sare ee SSC ayaa sheegay inuu qaadi doono tallaabooyin badan wuxuuna cambaarayay shirkii khaatumo ee dhawaan ka dhacay london wuxuuna ugu baaqay in shirkaasi dib loo dhigo qaybsanaantan ayaa imaanaysa xilli uu socdo qabanqaabada shir muddo la waday kaas oo daba socday shirkii khaatumo ee london ka dhacay oo ay ka soo qayb galeen jaalidaha deegaanka SSC